الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ولا ليال سيدين أكسون هاي وحين كوش دحجرنا بلوغي سنة كي هجريها إسلاميها. marka kelmadeenu waxay ku saabsan tahay macluumaad sanadka islaamka ku saabsan السنة النبوية الهجرة النبوية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام iyo wixii laga faa'iidayo waxa sababay iyo muhiimadda ay lahayd saddexda qodob baynu isdul taag insha Allah. xadath ama dhacdo waliba taariikhda waxay leedahay waliba tii nabiga sallallahu alayhi wasallam wax laga macaasho oo laga faa'iideysto ilaahay baana ugu talagalay subxaanahu wa tacaala. nolosheenna inaynu wax badan ku saxaynaa xadadkaa dhacay ama dhacdadaasi xigmadda ku jirta ee ilaahay ka lahaana waxbaynu ka fahmaynaa, wixii naga khuseeyana waa ka dhaqan gelinaynaa. qodobka u horeeya waxa weeye asbaabu haadihi lhijra. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaxoontigaa uu maka ka galay ilaahay daraaddii uga cararay sababa maxaa keenay? miyuu iska tegay nebigu mise sababaa jiray? sababaa jiray aynu ka soo qaadan doono 5 ka mid ah. sababta u horeysaa waxay ahayd reer maka oo nebiga ahaa tolkii sala allahu calayhi wasalam way diideen inay diintii hareeraha qabtaan ay nebiga la hinjiyaan, way iska soo taageen intoodii badnayd. 13 sannadood buu nebigu dacwadda ka dhex baahinayay oo aanu waxba ula hadhin, cadadka raacay uu koobnaa. markii ilaahay uu doonay dowlad islaamiya inuu dhiso kuwanaysa soo taageen, waxay noqotay in hijro loo ogolaado nebiga calayhi salaatu wasalaam. agbedelashadu halkaasay ka timi marka u horeeya. marka labaad, tahiyatu lmadiina liistiqbaali lmuslimiin. ilaahay wuxuu diyaarinaya dad kale oo fursaddaa iyagu ka faa'iidaysta oo reer madiine ah, oo halkay tolkii nebiga dil la baadi doonayeen ee guriga ay gaadh kaga qabteen oo habeenkii ka baxsaday, dad baa sacabo furan iyo durbaano iyo dabaalde ku soo dhoweynayay rasuul sala allahu calayhi wasalam oo reer madiine ah, oo lahaa dayaxii wuu soo baxay ee say tirinayeen dee hablaha iyo da'yartu guusha maalintaa la gaadhay. ilaahayna waa ammaanay waaladiina tabawa'u daara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun. aayadahaasuu ilaahay reer madiina ku ammaanaya. soo dhoweyn keliya arrintu ma ahayna wixii ay haysteen ayay quureenay bixiyeen u siiyeen walaalahooda u soo hijrooday. waa dadku arrimaha lagu kala ayaan badan yihin. arrinta saddexaad waxay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wa saxaabatu lkiraami qad tacaruduu liladaa. nebigii asxaabtiisii dhib baa laga dayn waayey oo wakhtiyadii uu ka soo hijroonayay in yar ka hor dee dhibkii ka soo gaadhay daa'if waynu garanaynaa. nebiga wuxuu is yidhi bal maka ku daashay waxaad u yara aag bedelataa daa'if oo bariga maka ahayd. halkaasay u soo ururiyeen addoomihii iyo dad waalan ayay nebiga ku sallideen sala allahu calayhi wasalam. waa la shiiday ilaa dhiiggiisii shariifkaha oo cagaha gaadhay oo isagoo cararaya uu ka soo firdhaday. taariikhdaad ka akhriyaysa iyo siirada taasina waa ta keentay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta u fasaxo 2 jeer inay halkaa maka iskaga tagaan oo ay xabashida tagaan. xabashida u hijroodo taga buuri intaan madiine loo hijroon. halkaa waxaa ka madaxa nin boqor ah oo aan dadka agtiisa lagu dulmiyaynin oo cadaalad leh, axmed unajaashi oo markii dambe islaamay. taasina arrin waxay ahayd saddexaad oo sababaysa hijrada. taariikhda haddii aad amba siirada akhridana waxaad arkaysaa sidii loo bukaasayay loo balanbalinayay camaar binu yaasir iyo hooyadii iyo aabbihii iyo bilaal iyo cabdillaahi ibnu mascuud, khabaab ibnu larat, saxaabadii ducafada ahaa. arrinta afraadna waxay ahayd ilaahay baa wuxuu doonay dowladda islaamku inay hesho dal iyo dad. oo dowlad marka la asaasayo waxaynu hijrada ka faa'iidaynaa inay u baahan tahay dowla islaamiya ardiya waa umma
ummad hareeraha qabata oo ciidan u noqota iyo colkii u howlgeli lahaa iyo dalkii marka reer Maka kol haddii ay dowladdii islaamka dalna u noqon waayeen dadna u noqon waayeen ilaahay halkaas uu la doonay mar walba ciidan la saarayna xataa kii sanadii sideedaad Maka lagu xoreynaha ahaadee reer ansaareed baa u badnaa badar laga soo bilaabo ilaahay taana wuu doonay subxaanahu wa tacaala marka cidda doonaysa dawla islaamiya inay asaasto cidday doonaysaba ha ahaatee waa in ardiyadii loo diyaariyaa dalkii laga asaasi lahaa iyo dadkii haddii dawla islaamiya oo la doonayo aanay dadku taageersanayn waa in la soo gaadhsiiyaa heer la isla fahmo horta dadka ila dadkaa kula dagaalamaya dowladda islaamiga marka dad u dhisayso hadday iyagiiba duminayaan horta ha la soo gaadhsiiyo in la isla fahmo oo la aqoonsiiyo inuu shaygani dan u yahay waana siduu nebigu sameeyey heshiisii u galay heshiiskii caqabadii hore iyo caqaba thaaniya oo reer ansaareed iyo da'yartoodii iyo dhallinyaradii iyo salaadiintii uu ku qanciyey dowladdan islaamka inay u dadaalaan arrinta shanaad waxay ahayd alhijratu sunnatun min sunani alambiyaa hijradu waxay ka mid tahay waa dhaqankii nebiyada iyo tababar ilaahay uu soo marinayay iyo waxay darajo ku helayeen dadkana mucallimiin ay ugu ahaayeen nebi nuux baa qaxay oo ilaahay daraaddii u firdhaday nebiyullaahi ibraahim nebi muuse nebi ciise oo caalamka sareba ilaahay uu hijrada u geliyey iyo nebiyullaahi muxamed waa shanta nebiya loo yaqaano ululcasm ee ilaahay uhi fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul u adkayso oo u sabir nebiyadii go-aanka adkaaya ululcasmiga la odhanaya siday u sabreen adiguna u sabir shanta arrimood haddaynu ku soo dhaafno sababaha keenay oo intuba aad arkayso inay gar iyo macquul ahaayeen waxaa ku xigaya 6 arrimood inaynu ka xusno ahmiyat alhijra nabawiya muhiimadda u leedahay hijrada dadka muslimiinta horeysiyo dambeysaba muhiimaddaas waxaa ka mid ah waxay ahayd marxalad kala saaraysay marxaladii hore iyo dacwadda waa nuqla macnaha geedi kala saarayay buu ahaa marxaladii hore ee dacwadda ee la yidhaahdo alcahdu almakki iyo marxaladda ama xaaladda labaad ee madiina 13 sare horena qayb baa loo yaqaanaa dacwadda qaybtan dambe 10 sanana ee madiina uu nabigu joogay sallallahu alayhi wasallam iyaguna waa xaalad kale quraanka soo dega kala duwanaa axkaamta la jideeyay baa kala duwanayd awoodda la lahaa baa kala duwanayd mid walba 10 laga baranaya labada marxaladood المرحلة العهد المكي والعهد المدني استدرادات بس 13 سنة اسم أمداد والنبي كشري دولة الإسلام كلا لسه يوا دولة ميسان بدن ومدن لبر بلارن هي الصبر هي التربية بيوبهانت جيل كذي ومقرن كذي بالديارية النبي صلى الله عليه وسلم كل كي مدينة وتجي النبي وحب العام مركات تشريعي أحكامتي إن أمضى لو صد شيء wixii qaanuun iyo nidaam noqon lahaa la raaci lahaa waxa ahmiyadeeda kamid ahaa waa sharafuha bi sharafi man qaadaha oo huwa nabiy sallallahu alayhi wasallam marxaladda waxa sharafu ahaa cidda hogaaminayso sharaf badnay oo nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam abu bakar uu diiday inuu iska hijroodo ilaa uu nabigu raaco wuxuu isagu u kuurgalay oo sugayay inuu nabiga raaco halka sharafta iyo taariikhda iyo amaanta ka helo markii uu nabigu u weynu hijroonaynaana aad buu barbararay oo uu farxay oo uu qoslay imika ma waxaad igu bushaaraynaysaa inaan ku raaco oo inuu wada hijroono rag baa kaligood iska tagay haabu taasina sharaf bay ahayd waana sababta ay asxaabtu u doorteen inay ka dhigaan mabda'a taariikh al-islaami taariikhda islaamka waqtigii laga bilaabayay inaan dhimashadii nabiga iyo dhalashadiisii midna laga dhigin laakiin marxaladda kala guurka cajiibka ahayd ee isbedelka weyn islaamka u soo kordhay in laga dhigo waxa kamid ahaa ahmiyadeeda sharafu almakan alladhi kanat alhijratu ilayhi goobta loo hijroonayo iyaduna sharafteeda iska lahayd oo markay asxaabtu halka tageen qaar kood baa yara xanuunsaday qaar kood baa boholiyo ku dhacdo maka iyo u darsaday marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii qancinay waa kii madiina u duceeyay intee oo daliil ayaa markaad nusuusta dib ugu noqoto ammaanaya reer madiina iyo uxud iyo eriyada marka halkaasina sharaf bay ahayd waana waxyaabaha amiyadda u sii yeelaya hijrada waxa afraad oo kamid ahaa waxyaabaha
mugaya miisaanka u yeelaya hijrada waqtigii hore hijradu waajib baahay sida arkaan islaamka kale ku dhaweydba may gaadhaynina marka qofku hadduu islaamo oo aanu ka soo hijroonin maka dambiilu ahaa dadkana wax lama qaybsan jirin oo uu ka dambeeyey quraanka haddaad akhrida aayada ka midana wuxuu ilaahay ku eedaynayaaba kuwa halkaa ku geeriyoodayba oo malaa'igtu ay la hadlayaan laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfathi waqaatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى بس النبي الهي قبل الهجرة ضدك الدقالمي وحبحيي يكوي بعد الهجرة لبدا سويك لدوين كوه هراء أيا ميسان بدن وأجر بدن وحكم وقنا يا دورك أي قبل مسلمات دي الهي إسلام كأيه هرجلنتي سايا كم وقنا يا هم معبدون النبي التباب الشيني سهيدي سنة qayb weyn ka ahayd iyo soo dhaweyntiisa iyo asmaa bintu abi bakr iyo sidii nabiga u anba bixinaysay iyo kaalinta ay ku lahayd sirta haynteeda iyo tabaabushii nabiga doorkooda inay mar walba diinta hirgelinteeda dumarku ka qaadanayeen baa ka muuqanaya hijrada waxa ka muuqanaya oo hijradu ay noo tilmaamaysaa anna as-siraac bayna al-haqq wal-baatil yatakarrar wa yatajaddad inta adduunyadu joogto legdankaas uu jiraya dagaalka u dhaxeeya islaamka iyo kufriga ama xaq iyo baadilka muslimiinta iyo gaalada uu soo socday rasuulkii ugu dambeeyay rasuuladana uu helay innagana wuu haysanaya gaal iyo islaam iyo xaq iyo baadil legdankaas ay ku jirayaan waana ta uu nabiga u cadeeyay ninkii waraqat ibn nawfal oranay oo ay ilmaadeen ahaayeen khadiija xaaskii nabiga sallallahu alayhi wasallam markii nabiga ilaahay uu soo diray uu yara cabsaday oo loo waxyooday ayay kaxaysay oo waxay u geysay ninkaas oo suufi meel ku cibaadeysanaya oo reer nasaareeda uu dhageystay rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ka waraystay waxa uu arkayo kadibna wuxuu u sheegay wuxuu horta shayga aad la timi waa xaq waana naamuuskii iyo khayrsidihii nabi muuse uu iman jiray malaga ahaaba adigana kuu yimi miyaan xoog ahaado maalinta qoladaadu ay ku saari doonaan ay ku eryi doonaan markaasuu nabigu macnaa waan ku hiilin lahaa buu leeyahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi oo miyay eryayaan waa tolkee dee wuxuu ogaa maxamed ulamiin bay u yaqaaneen oo way jeclaayeen oo miyay eryayaan buu yidhi tolkee waa lagu eryi doonaa buu qof kasta oo la yimaada xaqa aad la timi cuudiya waa la eryaa waana la colaadiyaa waxa lagugu haystaana maaha adiga laakiin waa xaq aad la timi marka haddaynu doonayno gaal inuu ina nabadgeliyo oo laga aamuso oo wax lagugu soo dhaweeyo arrinkaagu waa qalad marka sida legdankaasi u soo jiro u soo bilaabmay cahdigii nabi muuse nabiyullaahi aadam uu shaydaanku diiday nabi nuux lala dagaalamay ilaa nabi maxamed sidaas oo kale legdankaasi loogu jirayaaye adigu kaalintaada buuxi hana gabin oo islaamka ayaan garabkaaga looga soo dhicin waxyaabaha hijrada ka baranayna ka mid tahay nataa'ijka haddaynu soo noqono lix arrimood baa waxyaabaha hijrada laga faa'iiday ta horeysa waxa weeye aljamcu bayna atawakkuli wa akhdi alasbaab inaynu ilaahayna tala saaranno awoodeennana diyaarsano oo arrimaheennana aynu ururino oo asbaabta iyo wixii lagama maarmaan aynu la nimaadno oo nabigu sala allahu calayhi wasalam ilaahiisa wuu tala saartay waa ka amarkiisa qaatay hijrooday laakiin dee iskamuu siduu doonayo umuu dhaqmine wuxuu diyaarsaday sahaydii iyo gaadiidkii iyo ninkii dalyaqaanka ahaa iyo farsamadii iyo xeeladii uu baxayay intaba uu isku daray koonfur buu uga baxay nebigu madiina ee maka qaaru thawr meesha la yidhaha buu galay godkaa buurta dheer dhakada kaga yaalla isagoo ku dhuumanayo raad gadanaya umuu bixin dee waqooyigii laga baadi doonayay halkii waddadii madiina taasina jahawareer badan iyo daal bay ku keentay reer maka inay soo helaan nebiga ilaa intii la soo wareerayay halkaasuu ku jiray gaadiidkii buu soo diyaarsaday oo reer abubakar u soo diyaariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii dalyaqaanka ahaa ee uu aaminay ayuu isagana diyaarsaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam
taasina waa arrin lagama maarmaan oo ilaahay waynu tala saaranaynaa mar walba laakiin asbaabtaynu qaadanaynaa habeenkii markii uu baxayeyna cali ibnu abi aalib radia allaahu canhu ayuu nebigu ku yidhi salligayga seexo go-aygana huwo horay buu ka baxay intuu ilaahay iyagii ka indhatiray intuu fogaanayuu godkaa gaadhayay oo dhan cali bay eeganayeen weli wuu hurdaa macawistiisi baa la eeganaya weli wuu hurdaa markay soo yar baraarugaanay daaqadda ka eegaan isagii baa hurda waagiiba wuu baryay mise waa cali farsamooyinkay ka mid ahay marka taana inaynu ilowna maaha waxa aynu ka faa'iidaysanaynaa al-ikhlaas wasalaamatu al-aqraad wasalaamatu min al-aqraad ash-shakhsiyya qofku inuu waxa uu qabanayaa daacad ka yahay waxaad qabanaysaa waa inuu daacad kaa yahay oo aan waxba kuu dambayn ama waxba kuu hoosaynin nabiga calayhi salaatu wasalaam markii diintan ilaahay uu ku soo diray reer quraysheed waxay u soo bandhigeen wax walba dad iyo duunyada ma madaxtinimaad doonaysa ma hablaan ku guurinabaad doonaysa ma maal baad doonaysa bal waxuu sheego waxaasuu naga daa cusubeed keentay caqliga iyaga iyo ilaahyaashayadiiba ceebaynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinkiisa isagoo u daacad ah si adag buu diiday oo taariikhda ama siirada ka akhriyi doonto waxaa ka mid ah faa'iidooyinka ama nataa'ijka daacatullaahi fi lmanshadi waalmakrah inaynu ilaahay amarkiisa qaadanno waxaa layna amray haddaynu ku faraxsannahay iyo hadduu inagu adag yahay labadaba hadduu kuu fudud yahay hadduu kugu adag yahay mar balbal nafta ogolaysii laakiin haddii aad sharciga raacdo waxaasi markuu kuu fudud yahay markuu kugu yaro adkaadana qiilal aad raadisood sii siibato addoonnimadii maad xaqiijinin waa cudurkii reer banu israa'iil intay noo fududun diinta aan raacna bay dhaha intay nagu adagna aan iska dhaafno sidaa daraaddeed ba rasuulku sala allahu calayhi wasalam maka wuxuu ka baxay isagoo dib u soo eegaya ola innaka axabu bilaadi illaahi ilay dal oo dhan halkaan ugu jecelahay ee aan ku barbaaray ee aan ku dhashay ayaa tahay makaay kaamana baxeen haddaanay kuwaas iga kaa eriyey naftiisii laakiin wuxuu ogolaysiiyey halkuu ilaahay amray inuu tago markaa sharcigu ma aha naftaadu waxa ay doonayso waa sharcigu waxa uu doonayo inaad ilaahay u daacad ahaato subxaana wa tacaala ama ogolaad ilaahay adeecdo waxaa nataa'ijka ka mid a xifdullaahi liman xafida inuu ilaahay ilaalinayo qofka ilaahay ilaaliya wase ilaahay loo ilaalinaya isagaaba ina ilaalinaya sharcigiisa iyo amarkiisa ayaad ilaalinaysaad ku dhaqmaysaad hirgelinaysa ixfad illaaha yaxfadk ayuu ahaa xadiid alqudsi xadiidka nabiga laga warinaya calayhi salaatu wasalaam min xadiid ibni cabaas ixfad illaaha yaxfadk ilaahay ilaali wuu ku ilaalin sharcigiisa un ilaali isaguna wuu ku ilaalin markaa waxaynu arkaynaa bushaarana ilaahay wayna siiya wuxu uhi faallaahu khayrun xaafidan wa huwa arxamu araaximiin cid wax ilaalisoo naxariisata ilaahay baa ugu weyn tab iyo xeelad waxay qurayshi lahaayeen dhagaxay rogeen markay meel walba soo mareen afarta jiho waxay isdul taageen godkii uu nebigu galay calayhi salaatu wasalaam isagii abubakar hoosun baanay u eegine hareerihiisoo dhan way mareen abubakar waa kii nebiga la hadlaya calayhi salaatu wasalaam ee lahaa mid iyaga ka mid iha hadduu cagaha hoostooda eego wuu ina arkaya ee uu nebiguna ku lahaa sala allahu calayhi wasalam maa danuka yaa abaa bakr biithnayni allahu haaliuhuma maxaad abubakara u malaynaysaa laba ilaahay uu saddexaynayo ha u baqin ilaahay baa ina wehelinaya halkaasay ugu tegeen lama soo helin ama ha la yidhaahdo xayawaan iyo caaraa tegay ama wax kasta ha la sheego laakiin waa ilaalin ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam raggii isdul taagee soo helay waxaa ka mid ahaa suraaqatu bnu maalik intii aanu islaamin nin xariifa buu ahaa fardafuula wuxuu soo helay warkii nebiga calayhi salaatu wasalaam markii dambuu baxay isagoo dariiqa madiine sii haya intii laga quustay kadib ayaa qolo sahani u sheegtay oo siduu daba cararayay wuu isdul taagay ilaahay baa ka qabtay nebiga waa kii faraska dhulka la galay laba jeer ama saddex jeer buu dhulka galay faraskiisu sidii buu kaga hadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam kuna ictiraafay waxaynu ku bushaaraysanaynaa markaa rabbi subxaanahu wa tacaala ilaalintiisa mid ka weyni inaanay jirine ciddaynu u ciirsanayno aynu magan gelayno aynu hoos gelayno inuu isaga noqdo rabbi subxaanahu wa tacaala isha cadowga jin iyo insi midna ku arki maayo haddaad ilaahay u ciirsato
وأد مجن قشوا قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق أنت أشير بقى إلهي ونفر يعني إنه يسجد ديرانه وإنه معين يا مجن بقى يسجد ونقرنه وإنه معين سنة سبحانه وتعالى وحنا نتائج كم إذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه قفك وح وتعلي إلهي درادي وداية إلهي نوح أبدليا وحي سوحك خير بدن صحابة رضوان الله عليهم نبي أصحابت وحي كتجن دلكودي ددكودي دنيا دودي وحلا وحي كسو تبعين إيه الكيس ما كحيس النبي أدون كيس ما قاضني دلكي وسلاو تعلا وكاسو كتجن لكن إلهي الكاسو بدل القرآن كانوا ديك جور رمي ومدرسة وسولة وين يسد آذو تعال دل وناكسن يدد وناكسن يدنيا تيهرب كبضا يعيش يشرف يقول يقبل نمو أيه لين مركا ريمو كلك كوات كذا ميسانته وحاد قياس يسمحوا إلى هاي الدنيا محو إلى هاي رالي كيه وحو إلى هاي رالي كيه هم برومينيس كاسم بأكت هذا كوين وحدون يسوي وحك خير بدن بانات هلي سدا سانوها النبي الله إبراهيم ومركوري إني مهاجر إلى ربي أنا أقول إلهي حقي سانو هجرون إياه تدلكي وكي مالك في عم بإلهي كانوا كعبة بودس سدا درادت بمركو إلهي الله اللي الصحابة وحو إلهي باوحو إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم هدو إلهي قلبي إن خير كوغ هذا قلوبته إلهي أخرياي وحي الله إذن كلهري وحكونا أكسن أيو إلهي دي سين دورا بشاردنا إلهي وأو حقيقي وقدام بينتي أرنت اللي هذا النتائج أما وحيابا لقى فايدة كم إذا وحا أي نقنيان أما كم إذا مما يحقق الهجرة مما يحقق هوية الأمة واستقلالها هجرة وحكا صوب حي تاريخ حقيقي يسوهر قلينيس هوية أما أبترسيمة أمة الإسلام أمة وحيابا هوية ذا الشيء وحكمنا أما عدة أيهين inay u gooni tahay mabdoodu inuu gooni yahay taariikhdooduna ay u gooni maxay ugu dhigan yihiin gaaladu taariikhda miilaadiga ay taariikh kale ugu bedeli waayeen ciise ku daba leedahay waxay aaminsan yihiin weey marka inay ummadeennuna taariikhdeeda qaadato waxyaabaha ummadnimadeeda xaqiijinaya weey waa la heli karaya waqtigii saxaabadu ay qorayeen taariikhdan hijriga bilaabayeen inay ummadaha kale taariikhdooda qaateen way diideen waxay dooneen taariikh iyaga u gaara oo istiqlaaliyadooda iyo inaan cidaba socod u hayn cadaysa kadalik sidoo kale markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ummadda adaanka u jideynayay waxyaabo badan oo ummadaha kale ay isugu yeedhaan cibaadooyinkooda la soo qaaday caroogii baa la soo qaaday yahuuda iyo dawankii nasaarada intaba u diiday nabigu alayhi salaatu wasalaam marka qaadashada aynu qaadanay ummad kale taariikhdeedii waxay sheegaysaa tii asxaabtu inoo jideeyeen iyo hubiyadii islaamka inaynu dhaawacnay waana sababta la inoogu qasbayo ee la leeyahay maalinta yahuudda ee sabtida qaata maalinta nasaarada axadda qaata maalinta jimcaha ummadda islaamka iska weydaarta taariikhdiinii ka tago tan kale miilaadiga islaanta miyiga haddaad weydiisaa tidhaahdo taariikhdii miilaadigu imise ahayd august iyo sebtembar iyo november bay ku kala sheegaysaa iyo 19 iyo 14 midhan bay kugu akhriyayaan إلى لمبرهذودي بيدت كقيبسين في صومالي قودينا ويكتجن في عربي قودينا ويكتجن وحصل وحي شيء يعني وأمضها مركل لقات كاظو الرمها لقوم مقوريا ذا كميتي لحلا الرماد بين كسو كوبي كرنا وحيابها تاريخ ذا هجري قال لقام معاش كروا قيب كبيضهم وسصورنا هنا إذا مركا وحى مهمة هنا إنه قرنا دعوين كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كلها نتعلم منها دروس عشرين وكوض برنا هنا قفت أو دعاية قف وإذا ارتلب بدت كويا لنا يعني لكن وحب لا حكمة ملها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأقم الصلاة